baahida hargeysa ay qabto way fara badan tahay maxaa ugu horeeya ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan dabka ugu muhiimsan dabdamis in la abuuro runtii mudane Axmed Sawaaxili oo korneel gaashaan la sar Axmed Sawaaxili oo xaqiiqatan ahaa nin aqoon-yahana oo runtii ku muxuu ahaayay ka xeel dheer arrimaha la dagaalanka dabka oo runtii u soo shaqeeyay shirkadaha waaweyn caalamiga especially shirkadaha ku yaala dalka Imaaraadka Carabta oo runtii iman jiray dalkeena arkaysa dayacaad ay haysata iyo dhibta inaga haysata dadka guriga gubanaya oo ka wareyseen maalin walba loo buur baa gubtay oo bas beer dad baa ku gubtay loo oran jiray ayaa wuxuu isku dayay in badan in uu inaga wacyi oo xukuumadii kala dambeeyay mid kasta u sheego in loo baahan yahay in la asaaso ciidan waxaan bilaabay 1980 kiyaan bilaabay shaqada dabdamiska oo dalka Imaaraadka bilaabay marka wax ka bilaabay maxaa la fireman halkii ugu hooseeyay sanado kadib imtixaanaha la galaa waxaan noqday senior fireman waxa la yiraahdo sanado kadib haddana waxaan noqday sub officer waxa la yiraahdo sanado kadib waxaan noqday station officer waxa la yiraahdo sanado kadib waxaan noqday macallin baan noqday training officer baan noqday sanado kadibna waxaan noqday maxaa la yiraahdaa section leader waxa oo gaashaan la dhaxay ayaan shaqadii ku ahay waxaa jira dabka waxyaabo caawiyo inuu aad u sii holco waxyaabahaas waxaa ka mid ah neefta oksijiinta oo dagaalka 24 saacba ku wareegaysa shidaalka walxaha caaga ka samaysan khatarta korontada leydhka dhammaantood waxay sababaan dab aan sahlanayn haddii si khaldan loo maamulo waxay intaasi sii dheer dabka laga dhaliyo dhuxusha iyo shooladaha gaasta ku shaqeeya oo iyagana aan la dhaadin sida loogu gubto haddii aan feejignaan dheeraada laga samaynin mararka qaar way dhici kartaa in dambaska xaafaduhu ay soo qubaan uu xambaarsan yahay dhuxulo hoosta ka huraya hadhowna dab badani ka dhasho waxyeelada dunyada iyo dadka ka sakow ay sababtan dambe u leedahay waxa ka sii daran waxyeelada deegaanka iyo nolosha ku nool ay ku yeelanayso nasiib wanaag horaantii muxuu ahaa 14kii bishii 8aad ee 2013 ayaa waxa kulan isugu yimid gudida horumarinta caasimadda Hargeysa culimada iyo aqoon-yahanka ku go'oobay iyo maamulka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayso wasaaradda maaliyadda qayb ka tahay wasaaradda madaxtooyada qayb ka ahayd wasaaradda hawlaha guud ee qaranka qayb ka ahayd iyo duqa caasimadda Hargeysa ana gudoomiyaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo aragtidaasi shir ballaaran ka yeeshay xarunta rugta ganacsiga muxuu ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland مريان دمك سكينه هو نوعي بدين نوع يمكن هو هيانو ونوعية مسؤولين تيجشلان كان كل يرتوى كبيه وقول كل كبيه وصو كبيه أي كل بروفس كويك أعمال كشري وانجرس كان بدأ حلقة شرا بدأ حلقة شريسة وكقول كائن ليه هلا كنا كوفيدي وقال كاسك حرنسي سجل بس حرنسي مركا كل وكا كل ساعتي بينه كل كي وعلني ها مركا السماركي مركا انت مركا سوق شو والله انا قاعد ما شو